Shirkadda Apple ayaa maanta ku dhawaaqday soo saarista taleefanadeeda cusub ee iPhone 12 Pro iyo iPhone 12 Pro Max. Waxay ku soo bixi doonaan internetka jiilka shanaad 5G iyo tiknoolajiyad casri ah oo ruuxaysa xuduudaha hal-abuurnimada. Shirkadda Apple waxa ay ku naqshadaysaa taleefanadan cusub qalabka loo yaqaano A14 Bionic chip. waana kan ugu dhaqsiyaha badan taleefanada casriga ah. Wuxuu awood u leeyahay inuu qaado sawirro cajiib ah. Sidoo kale waxaa loo yeelay qalabka Apple Pro Raw oo awood ku siinaysa Dolby Vision ilaa iyo 60 frame per second. Kaamirooyinka taleefanadan ayaa dib loo casriyeeyay, waxaana xusid mudan in uu ka mid yahay ama ay ka mid tahay camera ultra wide ah oo si ballaar ah wax u duubaysa qaabkan. Sidoo kale waxaa ka mid ah camera telephoto ah oo si dhirir ah muuqaalka u duubaysa, waana qaabka aan hadda warqadda u hayo. wuxuuna taleefankani muuqaal ahaan wax ku duubi karaa jawiga maalinka iyo jawiga habeenka night mode. iPhone 12 Pro iyo iPhone 12 Pro Max waxaa lagu soo saari doonaa 4 midab: graph, qalin, dahab iyo midabka buluuga badda. Dalbashada hore ee iPhone 12 Pro wuxuu bilaabanayaa Jimcaha 16 Oktoobar iyadoo la heli karo Jimcaha 23 Oktoobar. iPhone 12 Pro Max ayaa la heli doonaa dalbashadiisa koobaad 6 November iyadoo si toos ah suuqa loo soo dhigi doono Jimcaha November 13. Labadan taleefan waxa ay qaabili doonaan xawaaraha internetka ee dunida ugu sarreeya marka la fiiriyo moobilada casriga ah ee dunida haatan laga isticmaalo. iPhone 12 Pro iyo iPhone 12 Pro Max waxaa loo yeelay GPU iyo CPU-ga ugu xawaaraha sarreeya dunida, kuwaas oo 50% ka xawaara sarreeya taleefanadii Apple ee hore loo isticmaali jiray. Xawaaraha isticmaalka taleefanadan ayaa la kordhiyay 80%. Sidoo kale battery life-ka ama muddada uu dabka hayn karo taleefankan ayaa sare loo qaaday. Isticmaalayaasha Apple ayaa markii hore waxay dhib ku qabeen muddada uu taleefankani dabka hayn karo, laakiin isticmaalayaasha iPhone 12 Pro iyo iPhone 12 Pro Max hadda dhibkaas waa ay ka raysan doonaan. Sidoo kale iPhone 12 Pro iyo iPhone 12 Pro Max waxay awood u leeyihiin inay qabtaan 11 trilyan oo shaqo ah halkii ilbiriqsiba. Haddaba shirkadda Samsung ayaa waxa ay wajahaysaa tartan adag oo uga imaanaya dhanka shirkadda Apple, iyadoo Samsung ay hore u soo saartay Galaxy Ultra iyo sidoo kale S20 FE. Cabirka iPhone 12 Pro waa 6.1 inji. Cabirka iPhone 12 Pro Max waa 6.7 inji. Mugga ay kala qaadaan taleefanadani waa 128 GB, 256 GB iyo 512 GB. qiimaha ay ku soo kala bixi doonaan taleefanadani waa iPhone 12 Pro oo ku soo baxaya $999 iyo iPhone 12 Pro Max oo ku soo baxaya $1,099. Haddaba adigu diyaar ma u tahay inaad iibsato iPhone 12 Pro iyo iPhone 12 Pro Max? Aragtidaada inoogu reeb qaybta comment.